إلهي بقى فانسكال سبحانه وتعالى يسوق كان ما أنت أنا هل كان مكسوب على عبد الله برولة وقلت له كوبادة إذا كتشوف لنا دعوش تاي دقنت هاي وحالا ندين كوي مد إنا ندين كان ما هذا اللي إذا كنا بوريو هوشة في عنا هيسان يا ذو قبل إنسان دتكيني يدلكيني إذا كوا معلمها نقبت شقوين هذا ترى oo aad nimanka cadawga kuna fogeyseen kulana dagaalamayeen maxaabiis iyo nolol banaad ka soo qabateen iyo kuwa dhintay iyo kuwa dhaawac intaba la keenay inaad ogaataan maanta dhibaatada ku dhacaysa shacabka Soomaaliyeed waxa maalin walba Muqdisho ka dhacaya waxa meelaha kale ka dhacaya maalin baqaraxii dhibaato ay geysanayaan waxa haweenkii Soomaaliyeed garo armalooyinka u noqdeen waxa carruurtii ay u agoontooday waxa wiilashii iyo ardaydii waxbarashada ay u baabaayaan waxa dhaawacaya naafadu oo dadka ugu batay kulligeed inay tahay wax niman leexsan manhaj khaldan ku socda lana iska qaban leeyahay sidaa daraadeed inay muhiim tahay idinku shaqada aad qabanaysaan iyo waxa mar walba aad hay'adka aad ku jirtaan iyo hawlgalkiinu inuu yahay mid u aaraya xusuusinaya xanuujinaya kuwa shabaabka iyaguna dhibkay geysanayaan in dhibkii oo kale loo geysanayo waxay tahay mid ku dayasho mudan أسبوع هذا أن صار دافع أنت هالقلد فلسطيني رغلاقات سويساني
haddii meel kasta oo Soomaaliya ka mid oo ka jiraan laga sameeyo waan hubaa socodkoodu inuu istaagi lahaa waxaan nasiib darraa in maalin walba aan tacsiyeyno oo ka tacsiyeyno shacab la xasuuqay intaasaa la baabi'iyey intaasaa la waxeeyey walaal Sheekh Bashiir la oran jiray oo geesi ahaa يعني ما ولادان انتو ياري وبرعو وحو كويري كالaya waxaan rabnaa inaan gaalada jabino waa nin geesi abu ahaa halgamayaasha Soomaalida hore ah Sheekh Bashiir walaadadii intuu bakeeri biya dhax dhigay bal ku jabiya aad u afuuf oo ku tufo oo ku akhriyo bakeerigaasi ha burburo walaadadii bakeeri intay dhax dhigeen bay ku akhriyeen sudamaha iyo yaasiin iyo wax walba lagu afuufay markuu biyina ka daadan waa jabina waa intuu qaaday buu ul ku dhuftay bismillaah allah akbar intuu yiri bakeeriga halka ku kala tuuray oo jabiyay in wax la tacsiyeeyo oo leeyahay maanta 200 baa dhimatay 100 baa dhimatay 500 baa dhimatay guriyaha dubay hanti baa baabaaday intaas la say wax macnaa ma sameynayso waa wadaadadii bakeeriga loo dhigay leeyahay ku daadiyo oo kale oo maxay u baahan tahay inta ficilka sameeyay ma loo baahan in la sameeyo فعل بالربا سوالي ما أنت مجموعة ير كوح ير مرتزقة حولها عنتا اسورور ستا ديجي عبا عندنا أن كان حينين أن قرنا إن واحد وصعدان نينك صادر يا أونا قرنا إن كلا دير يا أونا قرنا إن كصادر يا وحودر يا يعدوا شقيني شعب كي هو يوين كي أرضي دي يعدوا البابيسي برمجيدة دي بابينا يا يا مانو والبا waxaa shaqo laga dhigtay waxay sameeyaan in la yiraahdo aan tacsiyeyno waxaan ka soo horjeedaa tacsida waxaan ka soo horjeedaa calaamadaha waxaan ka soo horjeedaa hoos foorarsiga waxaan ka soo horjeedaa saacada la istaagayo oo rag baa jira ma la iska celiyo ila iska celiya asala oo lala dagaalamo oo guryahooda loogu tago oo aan ugu tagno ma laba nafood oo taan isbeera bal waa ku aan naqaan cid walba ka dawada xun waxaan rabnaa shaqadaad qabanaysaan inaan iyada si laba laabno shaqadaad qabanaysaan in laba laabo in guryahooda loogu tago in roonda la sameeyo haday jabhadeeyaan in la jabhadeeyo haday baabuur qaataan in baabuur la qaato wax diidaya ma jiro say u shaqeynayaan inaan si ka daran u shaqeyno waliba inaga ka facility fiican inaga ka aqoon fiican inaga ka dawladsan inaga ka dadnimo fiican taasaan rabaa marka inaan iyadaas u waxayno oo ka dhaawacay la qabto la daweeyo ka meydka la soo dilo la aaso ka la soo qabto la hanuuniyo maskaxda laga dhaqo sababtoo ilmahan in badan oo kamid ma garanayaan nooca ay wax u jirayaan kama duwana filmadii Hollywood-ka ah oo intii la fiirsado maanta oo kale hadana wixii uu sameeyo caawa hadduu filin aad u xamaasad badan oo jilaa fiican jilayo مثلا qofku uu ka soo baxo aroortii ciyaalkaad ka arkaysaa iyagoo jilaya nooci filimkii waxa bay jilayaan marka waa actors weey waa jilayaal noocaas ay sameynayaan anaga waxaan u baahanay marka inaan xigmadayno dawladayno mujtamaca ka soo saarno madaxooda dhaqno wanaajino dawladnimo tusno dariiqa fiican u kaxaynaan doonayna waxaad ogaataan cidna uma maqna ceello uma qodno dadka la sugaya waa dadkiinaan maanta maalin walba dhibaatada xamar ka dhacaysa waxay u baahan tahay in banaanka laga soo dhameeyo oo loo isugu yimaado gudaha iyo magaalooyinka dhibka laga geysanayo waxaan boorinayaa ciidamada Soomaaliyeed mas'uuliyiintooda taliyaasha ciidamadu waxay ka shaqeeyaan inay noqoto inay guryaha ka baxaan naf jacaylka la iska daayo oo la socdo oo la baxo oo la shaqeeyo oo la raadsado oo loogu tago waa wax yar ku dhamayn karayno laakiin mushkiladda jirta waxa weeyaan siyaasadii baa naga tabadatay waxa laga shaqeynaya waa siyaasad dhiig baa baxaya maalin walba siyaasaddu xagee qaban maxay siyaasadda taraysaa maalin walba dhiig baa daadanaya maalin walba caruur baa agoontoomaysa maalin walba gabdhaha asay xiranaya maalin walba kuwa naafo noqonaya maalin walba iskuulaha la xidhaya oo baaba'aya intaasoo dhan baa dhibaato oo taala wax
waxa maanta uu ku xidhan yahay masiirka Soomaaliya iyo in xal laga gaadho iyo in dadkaas laga qabtay waa idinkan ciidanka weey waa ciidanka waxa la rabo maanta mustaqbalka Soomaaliya inay saxaan oo ay badbaadiyaan dadkooda maxaa la xukumayaa haddii dadkii baaba'aya maalin walba maxaa la xukumayaa haddii shacabkii la xasuuqayo maxaa la xukumayaa haddii dhaqaalahoodii nin walba wixii rabo lagu samaynayo si loo galay waxaan mar kale ku celinayaa cidna uma maqna ceelna uma qodna ciidanku iyagay tahay maanta inaan isugu geyno awoodda marka aan cadowgaas ka qabanno ummadda oo gacmahooda aan ka xidhxidhno markaa kadib baa waxaan u dhaqaaqi karnaa wixii kale wadayno oo dhan la qaban karaa laakiin maalin walba iyadoo dhibaatada inay taagan tahay waxaa adkaanaysa waxa la rabo in la qabto waxaa adkaanaysa dawladnimadu waxay tahay in la isu sheego waxaa adkaanaysa dadka bannaanka ku baahan ee dhibaataysan in xataa dawo la gaarsiiyo maalin dhaweyd waxaa hadda masiibo wey ayaxo Soomaaliya gees buu ka soo bilaabay ilaa geeska kale uga baxay nabaad guur iyo wuxuu samaynayaa xaalf oo dhib u geysanaya hadday dawladnimadu jirto waxba la raadin lagu waxayna maxaa la qabanayaa amnigii ku horeeyay waxba laga qabanay ma ayax wax laga qaban karaa waxay la tahay waan sii laabaynaa hawlgalka waxaan isku daynaa inaan idin dhamaystiro waxyaalaha hawlgalkiinaas caawinaya haddii Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa in aan la isdhiganin oo maanta markaad guul soo hoyso bari aad keento aadan oranin aleelaha sidaas aan ahay oo si laba laabtood sii wado sababtoo in alaaliye inta adigu shaqada ku jirtay iyaguna dhibaato kale daba wareejinayaan waxaan rabnaa bulshada loo tagayay iyo magaalooyinka la tagay in mar walba akhlaaq fiican macaamilo wanaagsan soo jiidasho in lala gala dadka waxaan rabnaa in dadka la tuso dawladnimadu waxay tahay iyo waxa loo yahay waxaan rabnaa dadku inay dareemaan nimankan xoogsato xoolo ka urursanayo baabi'inaya inay yihiin annaguna aan nahay dawladnimo dadkii gacan jilicsan u fidinaysa iyagii la hadlaysa soo dhaweynaysa dadkii wax u qabanaysa taasaa keenaysay shalay halkaan markaan la imanisay ahayd iyo maanta iskuul iyo isbitaal iyo inay wax walba leedahay xafiisadii iyo wax walba loo sameeyey waa waxa dawladnimadu ay salka u tahay haddaydan joogin intaas magaaladani mayna hesheen intaas maanta intaasoo xafiis iskuulkii isbitaalkii xanaano caruur xarumihii kale dawladda intii oo dhan baa ka dhisan nalalkii biyihii waxay ku joogaan waa idinka fadligiinna iyo dhiiggiinna aad huraysaan aan ka shaqayna markaa aad baan idinka iyo saraakiishiinnaba idinku mahad celinaynaa nin waliba wuxuu qabto kii dalacaad mudanna waan siinaynaa kii abaalmarin kale mudanna waan siinaynaa hawlgalladii ugu dambeeyey raggii fuliyeen haddii Ilaahay dhaho waxaan rabnaa inaan ku abaalmarino waxa ay qabteen haddii Ilaahay
iskaashi iyo hufnaan iyo wanaag uu leeyahay ciidanka dawladda meesha ka jooga iyo deegaanka ka dhaxeeya ayaan ku soo dhaweynaynaa ulul amarada ilaahay umurta noogu dhiibay subxaanahu wa tacaala ayna adheecsanahay hadda maanta madaxdii ugu sarreysay ayaa joogta insha allahu tacaala deegaankaadii maamulkaadii shacabkaadii madaxweyne ku soo dhawow dawladda Jubbaland inay sida anagu jecelnahay inay noo jeclaato waa arkaysaan meel aan xitaa dadku kula kulana ma haysano banaanka sa taaganahay dumarkii haddaanahay waa soo taaganahay dhalinyaradu way taagan yihiin waxaa taagan odayaashii qoraxdaas u taaganahay waxaan daacad u nahay inaan madaxdeena soo dhaweyno waxaan rajaynayaa markaas inay nala dareemaan madaxdeena sida u jecelnahay sidaan mar walba aan u garab taaganahay insha Allah tacaala waxaan ka rajaynaynaa wax qabad daba inay noo sameyn doonaan ودبان waxaan rabaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad inaan u mahadceliyo ciidamada dowladda Jubbaland meel kasta ay joogaan gaar ahaan ciidamada halkan joogo oo shacabkoodii iyo dadkoodii si dhow ula shaqeynaya runtii idinkuna waxaan rabaa inaan ciidamo aad tihiin dad la og yahay naftiinana iyo maxay ay tahay dhiigiina lagu saaxda magaalooyinka sida gaar ahaan ku mahadcelinayna insha Allah taala waa dareemaysaan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha dowladda Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam waxaan idinka mahadcelinayaa soo dhaweyntiina reer Biroole idinka iyo shacab iyo odayaal iyo maamul iyo ciidanba iyo gabdhaha iyo hooyooyinka kulligood waxaan filayaa xilligii maanta isugu keen xigtay aad bay jiilaal u ahayd laakiin maanta alxamdulillah barwaaqo badanna dhulka way ka muuqataa ayixii meelaha socdana ilaahay waa idinka leexiyey taa lafteedu waa ilaahay wax loogu shukriyo maanta nimco fiican baa lagu jiraa waxaad ku mahadsantihiin idinka iyo ciidankiina iyo shacabkiina iyo odayaashiina iyo maamulku wada shaqayntiina iyo isku xidhnaanshaha dadka iyo bulshada oo aan garanayna shalay cidlada ahayd meeshan iyo maanta khalqiga ku nool intuu leeyahay sida maalin walba isbeddelku u jiro oo wax wanaaga waa run maalin horaan ka wada hadalay markaan idiin imid arrinta biyaha oo kale waxoogaa culaysaa iska jira laakiin waxaan rajaynayaa sanadkan hadda aan inoo bishay insha allahu arrinta biyaha inaan xal ka gaari doonno haddii lahayna midda waddadana waan soo diraynaa bal horta in la furo waddooyinka oo geedaha laga guro oo la banneeyo kabacdina tallaabadii la qaadi karo in la qaado waa run arrinta isbitaalka iyo hoolka shirarka baahidaasi way inala taallaa waa in hadda geedkeennana ilaahay baa inoo barakeeyey abaq fiicanoo weyn baan haysanaa laakiin hadda kadib hoolal fiican baan ku shiri doonnaa insha allah waad garanaysaan hadda maalintii halkan noogu dambaysay dadka halkan ku soo doogsaday oo u soo jabay iyo looyowgii halkan joogay farahoodii intay la ekaayeen oo ay ka yimaadeen qaarkood Kenya meesha ugu dambaysa Soomaaliya way ku barabaxeen sidaas ahayd marka abaalka iyo waxay dadku sheeganayeen iyo dadka riximka iyo islaamnimada ka dhaxaysa iyo walaalnimada iyo waxaasi waa maanta waxa shalayna la idinku imanayay maantana roobka ilaahay idin siiyay waa wanaagga iyo qalbi wanaagga dadka reer Biroole iyo deegaanku dadka yihiin intaa ku sii dadaala insha Allah waa la sii kordhiyo wixii aan qaban karana waan qabanaynaa idinka iyo ciidankiinana si aad isugu duubantiin isugu duubnaada iyo maamulkiina